ood uga taariikheyn karta gabdhaha yararka ma tahay waxyaalahaasa loo baahan yahay inaa maaragta uga faa'iidaysid haddaa hooyo tahay weliba aad sii tahay way kala tahay hooyooyinka oo dhan waa looga wada baahan yahay gaar ahaan hooyooyinka wax badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أيان لول وإذن الله أصحاب تجربك وكحرن سودا وهذا إن شاء الله وحاربا إن برنامج عن كهدلو إن جفتي عاش معركتي لصوت لقى السوشيال ميديا إن قبل عمرك جفتي لوكي إنه كله السوشيال ميديا يصوت لقايان إن شاء الله ربا إن كهدلا دولا يرادو إن جفتي هذا على سكوكين كراوي في عنتين واحد سكسو هديهيو ما شاء الله laakiin waxaa jirta waxyaalo badan oo haddaan dumarna runta markaas ku sheegno oo been laga sheego giftiyaal maaragtay la leeyahay odagayga gifti ii keenay saan waay giftiga iiga soo gateen ay leeyihin odayaasheena noo keenay marka dadka isku wada maskax ma ahan dumarka isku wada maskax ma ahan isku wada aqli ma ahan dumar badan oo waxaa jiro oo maaragtay odayaashooda aan gifti waxba maaragtay u keenin oo reerkooda habi ku ah oo reerkooda iskaga faraxsan oo gurigooda dhaqanayo marka waxay dhibaysaa dumarada qaar oonan damiir maaragtay aqligooda iyo dadka isku damiir iyo isku maskax isku aqli maaha siiba gabdhaha yaryar oo hadda maaragtay guurka cusub ku jiraan in la dhaho giftiyaasha intay dumarka iyaga soo gataan oo kale hadda waa is ognahay dumarow inta iyaga soo gataan ay dhahaan maaragtay odagayga ii keenay xaajigayga intaasoo garaan oo dahaba keenay xaajigayga waxaan keenay oo gabdhihii maaragtay laga waalaayo wallaahi oo maaragtay qaarkood ee gabdhii markay xitaa odayaashooda ee guriga ay yimaadaan albaab kasoo galaan ay dhahayaan maaragtay wax haddaaba gifti ii keenayn dhaaf haddaa vacationka noocaas ii geynaynin wallaahi waxaan arkataa dahabka intaas leeg intaasoo garaam oo dahab haddaada ii gadayn idhaaf la leeyahay marka wax qurxoonna ma oon marka giftiyaasha waa laisku keenaa hadiyadaha waa lais siiyaa wayna fiicanta in laiskaga daydo familiyaasha maaragtay hadiyadda marka ay siinayaan way fiicanta in laiskaga daydo laakiin wixii ka badbadin ma qurux badno waxaa arkaysaa social media inuu ka badbadin yahay waxaa arkaysaa maaragtay dad waaweyn oo intay soo fariistaan dhahayaan waxaan ka hadlaynaa maalintaa is baranay maalintaa is aragnay adaa ifiirsa anaa ku fiiriyey jacaylka asaa ku horeeyey anaa ku horeeyey waxyaalahaas ma aha waxyaalo maaragtay loo baahan yahay social media in lala imaado walaahi xataa gabar yar ma dhiireen social media waxyaalahaas oo kale la imo iska badaa qof weyn ma qurux badno in waxaa fiican qofka biniaadamka ee markaa hooyo tahay haddaa muddo aa reer leedahay waxaa qurux badan horta ma aragtay inaa laba u kala qaadno horta hooyooyinka waaweyn oo kale haddaan dad waaweyn aan oo kale ma qurux badno inaan soo gudbino maalintaa ninkeen isjeclaanay iyo maalintii nala soo doontay iyo jacaylka qofka ku horreeyay iyo meelihii aan soo istaagnay iyo waxyaalihii social media inaan soo dhigno waa laga qurux badan yahay waxaa wanaagsan hooyo ma tahay maxaa experience haysataa inaad dadku soo gudbisid hooyo soo sabarta gurigeed usoo dhabar adeegtay ma tahay hooyo wax badan dhibaatooyinka dunida ka dhacay usoo dulqaadatay ma tahay hooyo wax la-aan iyo wax haddii la haysto wadageeda usoo sabartay ma tahay hooyo dhibaatooyin badan kasoo samata baxday oo soo martay ood uga taariikheyn karta gabdhaha yararka ma tahay waxyaalahaasa loo baahan yahay inaa maaragta uga faa'iidaysid haddaa hooyo tahay weliba aad sii tahay way kala tahay hooyooyinka oo dhan waa looga wada baahan yahay gaar ahaan hooyooyinka wax badan maaragtay reer leh way experienceyaal badan way haystaan sida anigoo kaleeta ah maasha allah waxaa wanaagsan inaan dhinaca wanaagga aan ka qaadano haddii aan waxyaalahan soo marnay inaan ka sheekeyno ka taariikheyno loo baahan yahay waa inaa experiencega aan leenahay gabdhaha yararkaa usoo gudbino si ay nooga faa'iidaan maxaan maaragtay soo marnay maxaan wadanka gurigeena see ugu soo dhabar adeegnay maxaan maaragtay dulqaad badan oo haddaa gurigaadii odagaad usoo muujisay saa ugu soo muujisay waxaa waay gabdhahaada ayaa tusaale ku ah kuwa kaa yararo walaalaha ayaa tusaale ku ah gabdhaha yararku habaryarta iyo eedooyinka u tahay oo dunida daafeeda joogaa tusaale ku ah hooyo haddaa tahay waxaa wanaagsan wax badan ay gabdhaha kaaga dayan karaan si ay guryahooda ula tagaan hadiyadna ay u noqoto hadiyad waxaa ugu wanaagsan dhaqanka ee gabadha gurigooda ay kala timaado hooyadeed hadday tahay hooyo sabir badan gurigeedan usoo dhabar adeegtay dhibaatooyin badanna maaragta ugu soo sabartay gurigeeda ayadana gabadhaas saasay noqonaysaa
hadday taa hooyo kala daadiso oo kala tuurto oo ma aragtay dumarka waxaa la dhahay waa jabano kabto iyo kabano jabiso waa la dumarka marka waxaa fiican jabano kabta inaad tahay ee ku aragta gabadhaada inaad hooyo noocaas tahay asabar badan aad tahay hooyo lagu dayan kara inaad tahay inay ku aragto si ay iyadana maaragtay jidkaas ay u qaadato insha allah ma wanaagsano maanta oo dhan intaa hadiyada soo dhigno inaan maaragtay hadiyadii laiskugu faano gabdhaha yararka waxaa waaya dhibba maba laha dhallinyaranimadooda laakiin hooyooyin waaweyn haddaan nahay way iska wanaagsan tahay giftiga in laisku keeno laakiin ka badbadinta ma wanaagsano dumar haddaan nahay dahabka annaga soo gadano dharka annaga soo iibsano baabuurta annaga soo iibsano inta hagbada iyo ayuutooyinka aan galno waxaa lee waxaa ii keenay ninkaygi waa is ognahay nimankaana ma aragta wax ay keenin aa ku magacaabaysiin iska daaya nimanka iyaka waxa idiin keenaan maaha inaa idinka gift u keentiin gabadha waa inuu ayada ninkeeda wax u keeno gabadha waa inuu ayada ninkeeda wax usoo hadiyeeyo hadiyadana ka badbadinta ma wanaagsano waa waxaada iyo nimcadaada iyo kheyrkaada waa inaad qarsatid wanaagna waxa kuugu filan waxaa waaye dadka waa wanaag inay kaa sheegaan dunidu waa inay iyada ku qorto waxaa tahayna waa inay iyada ku qorto hooyo wanaagsan haddaa tahayna waxaa laga garan karaa gurigaada iyo maamulkaada iyo sida aa gurigaada ugu soo dhabar adeegtay marka waxaan idin dhihi lahaa hadduu ilaah yiraahdo asxaabta janalkeyga ku xiran iyo dhammaan youtuberiinta iyo dadka social media ku jiro dhan gabdho badan ayaa dadka isku damiir ahayn hadiyadahan aad soo dhigaysaan dhibaatooyin badan dada u geysataa jirto insha allah hadda waxaa rajeynaya waxaa waaye in giftiyada markii laisku keenaayo aan iska dayna hadduu ilaah yiraahdo inaa maaragtay maasha allah barnaamijyadaas waa badin doonaa hadduu ilaah yiraahdo gabdhahan igala soo qaybgali doonaan qaarkood gabdhihii arrimahan ee ku dhacday ay ka mid yihiin insha allah barnaamijka qayb kale nooga soo sameyn doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo marka waxaan idin leeyahay gabdhaha isku mid ma ahan ha laga ilaaliyo maaragtay giftiyada maaragtay markii lasoo dhigo laleeyahay odagayga ii keenay nin saan hadduu kaa ahayn nin makaa ahaan maaragta kaa maqnaado nin hadduu waxaan kuu gadina kaa maqnaado nin hadduu gaarigan kuu gadina kaa maqnaado gabdhow yaa liswaalin waa is ognahay annaga giftiyada idinka soo gadataan aa nimanka ku magacaabaysaan iska dhaafo walaaliga aan jeclahay hadiyadan waxay ku qurux badan tahay way wanaagsan tahay labadiinaba inaa isku keentiin ka badbadinta unbaa maaragtay aan wanaagsanayn qofka dumaran waxaa wanaagsan hadiyadiina ayada loo keeno waxaa arkaysaa hadiyad ninkii wadayba lasoo sawiraynin ninkii wada la arkaynin ee naag la ordeyso oo lasoo dhigayo social media oo laleeyahay intaasoo garaano dahaba odagayga ii soo gaday gaariga noocaana odagayga ii soo gaday maxala odagaygiibaa waxaanu adduunyo keenay xaajigayga ii keenay xaaji hadduu kan oo kale ahayn maaragta weligiis baa kaa maqnaado marka gabdhaha waxay u fakarayaan nimankooda maaragtay inay waxba siineyn inay dhibaatooyin ku jiraan marka hore waxaa laga yaaba gabadhaas inay habi iska ahayd maaragtay markay adig ku aragtay ee kacdo oo gurigaas buuq iyo qalalaaso adi aa u noqotid oo dhibaato adi aa u noqotid wayna dhacdaa wayna jiraan sababtay ta dumarka siday faraheen u sineynayso u sineyn maaragtay mararka qaar iyagana ee qaladaad badan ee dhinacaas ay ka yimaadaan way dhacdaa marka insha allah waxaan idin leeyahay asxaabta janalkeyga ku xiran hadduu ilaaha yiraahdo arrintaas aan ka waans qaadan hadduu ilaaha yiraahdo hooyooyinkan dumarkan u badan haddaan hooyooyinaan insha allah waxaan rajeynayaa dhammaanteenba in wax nalaga faa'iido dadka maaragtay in wax u faa'iideyno aan noqono dadkooda wax u qabto waxna u faa'iideeyo insha allah waxaa kuu saartay insha allah videogan aan uga faa'iideysana hadduu ilaaha yiraahdo mashquulkayga inuu batay aan shaqooyin aan meel ka bilaabay gabarna ay ii umushay aan mashquul aan noqday marka insha allah barnaamijkii cooking galaaska ahaa waqti dambe iyo waqtigu ilaah ii saamaxaa arkayaa marka mashquulaan ka noqday waana shaqeeyaa guri hawshiisiina way igu xiriirtaa umulna maaragta way ii fadhidaa marka mashquuladeyda ayaa batay saasaa u ogaanaysiin asxaabteyda hadduu ilaah yiraahdo waxaan idin leeyahay dhammaantiinbo waxaan idinkaga tagaya insha allah waa walaashiin ayaan luul oo idin jecel oo idin le asxaabta janalkeyga ku xiran soo dhawaada waxaa waa idin kale waxna lagu yahay marka waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba barnaamijyadana noo sii sheer gareeya soona dhawaada idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu